بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. ما هذا وحا اسكال برباريها جد برباريني إلهي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأمهد علينا وأنا كالما ويدي سنينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا حنون سميننا إلهي كما ينقلينا وحكا دلنك. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله صدرهن ayaan asagana maaragtay ilaahay u weydiisanaynaa inuu maaragtay nabadgeliyo in xariisiyo saasoo kale ayadana waxaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahay asaga yarna weydiista udcuuni astajib lakum weydiista waan siinayaa afanta amalani iyo waman tabi'ahum qofkii ku raaca bi ihsaanin ku raaca Soomaalidu waxay ihsaanka u taqaanaa war heblow arintan ii samay lacag ma haystee إحسان ولا الإحسان يقول سمعني مركو ومن تبعهم بإحسان القفك كرها إحسان معناها سون العاقل الرسول كويدي سنين يدين تي وحن وكهلا إيه أنا أجلين ها كاس إلهي عون حريستونا بدي كل كيس عصار ها ومن تبعهم بإحسان مجد إلى يوم الدين ما أنت لقى جارايو ما أنت لقاك دين وما دل ما أنت إن شاء الله كهل الدونه سورة أن كجرنو حوالي سورة آل عمران عمران مركو حواي ومعركتي قوسكي عيسى عليه السلام إيو مريم بنت عمران أي اللي بيجي جري مريم بنت عمران وأساسه وحالي رحلة وهو يدي نبي الله عيسى عليه السلام وأساسه واقرت مركي نبي ويميت كسو هاجري أما كسو حيامي مكة ويمد مدينة سنة كلابات أما سنة السدحات أي آياداني صورة دان سودكتي مكة ولو حاس صعودة هل جنكي لدوني إن ذات كلو قبت سيو قبتين عصب هذا سؤال عصب قاعد إنه عنق مركو أنتو سندالن كهر وحالي رهلا وما أنقر سنة أو ولي وحماركتي لكن oo u sheegayo wuxuu uu sameeynayo iyo wuxuu uu san sameeyneen wali ma laha waajirta malayna fa abawaahu labadiisa aabe ay ka dhiganta aabiis hooyadiis labadaba waa isku midkii yuhawidaani ayaga yahuudiyiinaya ama oo yunasraani ayaga nasraan maaragtay gargaaraysiinaya oo ama majuusi ka dhigay waa majuusinaynaya mujid فأبواه يهودانه أو ينصران مركا أنكركا وحال يراهدا dadkii maaragtay farsamada bartay ama jaamacadaha dhigtay ama computerka wax ka yaqaan computerka dadkan wax ka garanaynin macnaha waxa la dhihi karaa waa qalab waaye qalabkaas oo wax samay la dhahayo waxaasuna sameynaya marka hadda ka hor muddo laga joogo 15 sanadood anu magaalada Nairobi jooga xaafada 6th Street masaajidka oo isli meel ka gadaalayso xukuu laan jiray dukaan yar oo nin maaragtay Soomaalida reer Kenya lahaay oo ka furtay dadka computerka xaas lagu bartay marka galabtii markaan faraaqayna meesha computerka xaas ka baran jiray waxaan leeyahay 1996 kims 90 adiga 5 meelahaas 96 meelahaas sagaashan marka jumlo waxaa jirta aanan iloobin oo waxay leedahay software-ka markii laga hadlayo computerka waxa uu ku shaqeeyo waxa la yiri is a codal instructions waa code number iyo xuruuf waaye oo tilmaamaya computerka waxay leeyihiin sidaan ha sameyn computer codal instructions which computer must obey computerka marka lama horaan ku noqonaysa inuu yahay meeshan usoo dhaadhicin waxa waaye bani aadamkuna saasoo kale tuu leeyahay barnaamij waxaa jira uu ku shaqaynayo codal instructions which the human being must obey لازم noqonayso inuu yahay waay uu sameynaya wuxuu sameynayaa sida computerka waxa la yiri
coded instructions which computer must obey. It represents a logical solution to a problem. Soomaalida ana ba'da problem ayaan dhahnaa. Barbarka dadka la sheegi jiray inaan malayn. Ba'da ma dhaha taas waa. Marka Greek wuxuu noqon qof walba ba'da aanan karin oo malaynaa Greek wuxuu noqon barbari uu noqon dadka barbariinta annagana barbar eri xun ma aha laakiin waa laga dhigay laakiin dhulka dadkaas maaragtay bariga Afrika iyo waqooyiga Afrika dadka ku dhaqan ayaa la dhihi jiray barbaria walow maaragtay macnayaal aan wanaagsanin la lamaaniyay wali Rwandada waxba garan وحتى ماركتي وحي سو غاريسا نينكي كالاتو اسغنا او ماركتي عربتي جغرافيا هندي عربتو waxay dhigeen Muqdisho waa magaalo fiican oo dad fara badan muslimiin ku nool laakiin ma lahayn dad fakiro wax qoro oo maaragtay farshaxan waxna hawlahaas ma jirin de se ku noqonayso ma aqaan laakiin waxna lagu ninka inuu ma qofku inuu xantiisa ogaado mid meesha ku jirto kina waxaas ka baxna loo baahan dad maaragtay taagan noqon hadii jirto hadii sin jirin aan war naga tago waxaas aanu kuma jirin marka ayada marka waxay leedahay in ad-diina diinta inda Allah ilaahi al-islaam marka waa laga soo guuray Madiina la yimid dadkii marka Madiina jigi ayaa quraanka u rabaa inuu ku qanciyo inay yihiin inay doortaan wada saxsan wadadayna maaragtay kuwa aan wali doorana lagu qancinayo inay wadadan raacaan marka saas إن الدين ولا هذا مركو حنقول جيرنا سقعدتو معه ولا الدين مركو حسده الدين وحواي عنقاس ير أن ولل أنقرن ومشين وكلات وعم قلب وكلات ولي برنامج كي وعنقاس كل شقين لها وشيء لها وحنا سمي وحنا سمين كم دين لكن كل ده لا أي سمين برنامج كاسو سمينه وفهمت المدني إن جودهان دورك ودقنكو عيارayana waa kaawa ilmu wuxuu u sheegay waxa ay tahay taas walidaalika ayaa waxa lagu xiraa horumarka insaaniyada iyo dawladda labadaba waxa loo sheegayo bulshada inay sameeyaan iyo waxa ay tahay inaysan sameeynin ay faantaan umaleynay in waana macnaha diintuna door ay ku leedahay asaasi ah hawlaha noocaas oo kale ah oo barnaamijkii cunugu ku shaqeyn lahaa ay dhisaysa in diin marka برنامج كاس شقيني إلهي أكتس هالمد كليا كجر سبحانه عز وجل محويه الإسلام هو إلهي أكتس هاي هالكاس كليا كجر مركا وحلقيا بقى إني راعدو ديمها كلام جيران ديمها كلام تمجر هذا قرآن كاير ومصدقا لما بين يديه وحرمين عيا كوي أسير كوري مركا اسمه راعي كرت اللي هذا الدين الإلهي الإسلام هنا مجرته يئمي هذا ما يسرعش مركو وحاوي قابك سحسون وحاوي تذكر دن ومسلمين إلا قفك أسجع سكديدة ما حني حديث مساس وكذا تنقص عرفت واجري ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الملة أيضا مساس وكذا توايو وبرنامج كاس وكل شيء جاية وحأيتها إنها تسميست كان اللي حاتت وحأيتها إنها كل حاتت coded instructions which computer must obey sababto uu yeelay maxay tahay computerku muxuu u yeelayaa waxa lagu yiri waxaan samay amarku taagaleynta noocaas oo kale ta computerku muxuu u qaadanaya it represents a logical solution to a problem mushkilo haysata computerka ay xal u tahay it represents a logical solution wa xal macquul oo qof walba aqal markuu fiiriyo xoolaha waa saxsan ilaahay wuxuu kugu khasbay ma jirto kuma dhahay ana ku abuuris ana samaynayso هذا تسميه النار كل مرة هي سبحانه عز وجل حكيم عليم كريم يعني الرحيم أدنى حريص بضمها مركو كما سوروا بوحنوا عصوا كالتا حرم الظلم على نفسي وجعل بينكم حراما فلا تظلموا إلهي وحوير ما أنا وقعد الرعان سمعينها مجر حرم الظلم على نفسي وحديث والديري إلهي نوح قرد الرعان سمعين وجعل بينكم حراما فلا تظلموا إذن كدحدينا أو ضدك الدونك أولا فيري يعني قرآن كأمه الله مسود دجين عرب يسومالي إيو يذكر إيو مالك الله مسود دجين يا العالم كله أي الله مسود دجين قفكي دورت وحالته سكرين دورش في عن سمي قفكي كانت ناسي ترتاح والله ويرا وح في عن وعد الدنكوت هذا هذا ديدنا ذي على دنت هذه قرم واي
marka cinda allahi alislaam. ما معنى الإسلام marka alislaam waxa waaye waa in hawsha loo daayo waa in daysmo waay dadka qaarkood waxay dhahaan maaragtay waa abad waay abad ina madaxa labada gacmo saartirada waa isdhiibi hada taas waxay sarbeebaysaa dagaal in laga adkaado ya isdhiibka waa culimada ku fasiraan oo macnaha nabadna xiriir leedahna macnaha masar hadda waxa laga yiraahdaa yani qaar waxay yiraahdaan wajhad silmi wadan nabadeedan waxaan ku keenaynaa isbedel siyaasi ah oo qancinaya mataalibka dalabaadka siyaasiga ah ee masar ka jira silmi nabadeed alislaam marka waxa la yiraahdaa asaas wuxuu leeyahay judur oo nabadeed u leeyahay waa nabad ya nabad way amaan laakiin macnaha waxa waaye haddaan ka fiirino culuumta casriga annaga ilaan hadda macnaha madiina iyo xilligan hadda la joogo waa kala gedisan tahay laakiin mushkiladii un baa jirto oo dadka in la tuso way yiraahdo ruuxan wax fiican waay idinka idinta lagu qanciyo ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana ud'u ila sabili rabbika ud'u ila sabili rabbika bil hikma qaab murti ku jirto murtidana maxay tahay إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وضعا إذا إذن في عنتهاي وكم ذوبيسين وحكى لا تنوى إذا كلاجيجينا يعني سنعيسين وزدقاليسين وزبربرونيسين وزحقليسين وحاسو كجريسين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وضعا وودد يدي وعقرت أدعو إلى الله ضدك وحان لا يورك علي وهل كان آلينا معانك دونينا على بصيرة أركتين ضدك وحوش يجينا اسكشك ما أدعو إلى الله على بصيرة فهمتوا تامرك waxay ka gidis marka ala basirada qofku in la tusaa in waxaan yihiin wax saxsan haduu doorto quraanka marka dhan halganka uu ku jiro waa kaaw ad'u ila allah ala basira mujid macnaha wax la arki karo ama ishana cadaad lagu arki karo ama isha kale oo wax aragta lagu arki karo ad'u ila allah ala basirati ya sameeyna asaas ana ayaa sameeynaa nabiga muhammad alayhi salam عليه الصلاة والسلام ومن اتبعني ساس وحسمينا وكل عدي أنا غير راعي ماشي أنا مريم مرتا أيجا ساس سمينا محي سمينا أدعو إلى الله على بصيرة وهذه سبيلي هي أدعو إلى الله على بصيرة مركا بصيرة وحوا يقفكوا إنه إزدلت هاجو وحجرش هذا عشان أكون تاجر وضد أنا تودد صحسن واجد مركا الإسلام وحنا هني وحواي قفك علوم العصر وحيليه قفك baraarugiisa markuu baraarugsan yahay intuu garto wax kooban salaano kale mushkila kula soo gudboonaanis inaad xallisid baa rabtaa yani xalka inta aad xusuusan kartid aad u yartahay marka loo barbar dhigay inta aad gadaal ka xusuusan kartid oo waxa la yiraahdaa unconscious oo kale tariirada waxa aan hadda ka warqabin laakiin ku kaydsan markaas waxa la yiraahdaa qofku waa inuu yiraahdaa okay arrintan xalkeedu waan helay laakiin hadda gacanta kuma hayo waa ku soo dhacaysa marka maaragta ilaahayna waa kugu soo dejinaya ilaahay markaad weydiisto tiraahdeed ilaahay oo maaragta arrintan iyo xal waa kugu soo dejinaya maxaa dhacay quraanku waa sidaas waay وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين marka fiiriso quraanka nabiga qaabka uu soo degayna waa qaabkaas oo waxa la yiraahdaa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi waxa la yiraahdaa maahan ilaahay wuxuu yiri la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi hay in arabkaaga hadhaqaajinaya sababto adoo islaha ay maray tadaji ayadaha soo boobsiyo ha samayn لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أنك كركنا تانا صور إنه كون آخرين علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه مركان آخرينه فاتبع قرآنه رع ثم إن علينا بيانه كبعد أنك كركنا تهي إن كو عدينه كلا بل تحبون العاجلة لكن واحد جعشين ليري دق جعشين يا مسوا جيسين كلا بل تحبون العاجلة waxa laga waday nabiga laga waday sidaas maya bani aadam ku dhawm marka maxaa la sameeynaya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadharuna al-akhirah markaasad ki kala duwan wanaagsan ka tagaysiin waa garto
marka arrintan maxay xiriir la leedahay arrintii aan soo sheegnay oo diinta iyo islaamka iyo ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man basirada maxaa waay waxa la arkay basira marka waxa isha saddexaad lagu arko waay iyo si kale to maaragtay qofku marka arkay agtiisa wax ku ogaan kara si in dheergaradnimaha wixii lagu qabtay waay waxa la oran karaa marka wali ma aadan keenin wixii basirada ahaydoo ay dadku wada arki kareen oo dhihi kareen ha wada saxsan waa wadadan marka intaasoo dhan waxaan ka soo wadnay waxaa jira qofka uusan asagu keeni karin amaba markaas sida culumta casriga inoo sheegayso ay ku xiran tahay qayb asaga kamida oo markaas xusuustiisa ah inay ku jirto ay walidaalika waxa la yiraahdaa dadka oo doroso waxa la quraanku wuxuu yaqaan ahlu dhikri wa xasuusta yar walidaalika waxana loo bixiyay al-insaan iloobi wa iloo badan ma dadka aqoonta lana waxa la yiraahdaa waa kuwa xusuusta maaha maartii kiibuwaad fara badan akhriima waa kan wax xusuustiisu ay degdegta marka xataa kaas mar waxaa jirta arrin ay taagantahay uusan gacanta ku soo dhigi karin arrintaas qaabka ugu wanaagsan oo loo naawili karo way fahantaan umaleyn culumta casrigaana markhaati arrintaas ka tahay oo cilmu nafsiga unconscious ka yiraahdaa waxa aad markaas ka warqabin waay xusuusta ku kaydsan waagartay marka waa inaad tiraahdaa war aniga arrintaas ilaahay baan weydiisto waan siinayaa laakiin hadda gacanta kuma hayo waa imaanaysa mujid waa isdhiibitaan ilaahay baad arrintu u dhiibtay arrin baa ku dhibtay ku murjisay ku xanuujisay ama ka walwashay ama si kale waxaad leedahay arrintana ilaahay wuu xalliyay ilaahay baan weydiisanaya inuu ii xalliyo ilaahayna waa xallinaya wajida udcuuni astajib lakum iimaan baa laga rabaa ilaahay waa weydiistay inaad iska tagtid ma ilaahay waa weydiis wuuna ku siinay asaa yidhi ballan qaaday udcuuni astajib lakum iimaanka marka waxaa ka mid inaad runsatid in lagu siiyey aad ka soo qaadid waa imaanaysaa markii wixii arabta lagu siin waxa aad qaadatid oo noqon ninkii yiri caantayn ilaahu dahab isugu dahab markii la siiyay Soomaaliya waxay tiraahdaa wuxuu yiri alcaantayn xaq alxamaal marka warkaas war diinta ku jira ma laakiin ala ibrat almithaal waxa laga soo qaadanaya macnaha wixii dadaalkii adiga inaad la imaatida laga rabaayo wax iska dhigay inaad noqotid oo ilaahay markuu fikradihii wixii aad rabtay qaabka aad ku heli karto ku siinay wixii iyo dadkii ku sahlay adiga marka dadaalkii inaad la imaatid wa inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim fandamay ya sida ninkaas oo kale ilaahay intuu dahab ku siiyo hadana kuma siinay lacagta aad dahabka ku qaadan lahayd kuma siinay gabadhan jecelahay guursaday ilaahay oo siyaatira gabadhii intuu ku tusay gabadhii aad ka aragtay inuu ku jeceshay adna aad jeceshay hadii hawshiina aad ugu qabatay gabadhii tira walaalo iska helnaya saan waxaan dhab uga dhigi karnaa ganacsiga waa sida siyaasadii waa sida wax walba ilaahay hadii ala dadaalka laga rabo ilaahay ma bedelay dad ilaahay ay isu bedelan maan maxaa laga soo wadaa marka intaas oo dhan qofku wuxuu sugayaa wuxuu tala saartay ya oo ma aragtay u dhiibtay howlihiisa oo dhan ilaahay u dhiibtay azza wa jalla marka dadka qaybtaysan ogeyn ayaa jirta qayb waxa jirta insaaniyada oo dhan ay wadaagtooysan ogeyn qayb kale toon la ogeyn oo ka sii weyn taas way ilaahay ya konko oo dhan ayaad ma aragtay u tala saaranaysaa ilaahay hawshaasan rabaa هلا يصير ولا قصيني فهذه هي إخوة الأعزاء يعني نعمة الإسلام تاسوا وحبا ودي سنة ولا قصيني لكن رنصة شذي إن اللي ما تدوى هذه إذا ذلك كذي إن اللي ما تدوى إلا بضي بين اللي ما تدوى إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هذه هي البصيرة معدة وحواهي وحلال إلهي وحس سي واقر وأنا كوكل صنعنا سواحس إلو سي واقر قابكي دتكي لغو سهلايا ظروفية لغو سهلايا وحي نمبا لغو سهلايا يا فكرته هي لغو سينا إي قابكي هولها أدكو هلي أديك دلالكي لإيماني وحس كديك نقنيسا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلا أيوه إسبدنا إلهي ما بدله واقر هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الإسلام هو كمرك إساس وهي إسلامكم قوس مجرته إنسانكم قوسني الإسلام المسلم معناها لا ييأس من رحمة الله ما كقوسني